su-aasha kale waxaa ku bilowday asalaamu calaykum waa walaal waa Faysal waxaan joogaa Jiinaha sheekh waxaan weydiinayaa muxuu ahaa meel markaasi waa in muxuu ahaa maalkayga yaa muxuu ahaa ku waajiba inaan ka qoodiyo oo aan wax ka siiyo oo haddaan wax ka sii waayana muxuu ahaa liya cadaabaya ayuu ka wada hadalka alxamdulilah su-aasha waxaan umanayaa su-aal dhinaca lug kula leh baan xalaqada iyo fadhiga hore ku soo marnay su-aashu nafaqaadkooda yay waajib ugu yihiin culimmada muslimiinta gaar ahaan madaahibta mashhuurka ee afarta waxna way isku raacsan yihiin waxna way isku khilaafsan yihiin dadka waxaynu u qaybinaynaa saddex usuul furuuc iyo xawaashi waxaan sheegaynaa un qaacidada daabidka ah ee asaaska usuusha waa aabbaha iyo hooyada iyo awowga iyo ayeyda kor u sii soco furuucduna waa ilmaha dhashay iyo waxay sii dhaleen rag iyo dumarkay dooni ha ahaadaan xawaashiduna waa waxa xigtadeen labada ahayne walaal adeer abti ina adeer ina abti ah eedo waxay yidhahdaan carabiga mubaashir iyo hayr mubaashir mid kula xiriira toosa iyo mid laydin dhexeeyo aabba iyo hooye ku dhalay toos bay kula xiriiraan awow iyo ayeye laakiin waa laydin dhexeeyaa kor u sii soco hadba way sii fogaanayaan furuucduna waa labadaas oo kaleeto kuwa adu toos aad u dhashay oon laydin dhexayn iyo ka laydin dhexeeyo kuway sii dhaleen iyo kuway sii dhaleen oo kaleeto ah labadaa qaybood culimmadu waxay u badan yihiin usuushoo dhan nafaqadoodu inay waajibayso shuruuddoodii haddii la helo furuucdoo dhanna nafaqadoodii ay waajibayso shuruuddoodii haddii la helo asalka waxay dhaheen wain calaa haba sarreeya meel kore ha tago faracna waxay dhaheen wain safal haba hooseeyo meel hoose ha taga awlawada saddexaad ta kadaa rabto ama awlawada saddexaad ku jiro iyo labada iyo saddexaad usuusha iyo furuucdu cinda jamhuuri lfuqahaa maalikiyada maahane saddexda madhabooda kale nafaqadooda way waajibiyeen laakiin shuruud haddii la helo waa inuu faqiir yahay adiguna inaad hani tahay ood haysata wey laba qaabil ismaba qaade haddana waxba haysanin maxaa kugu waajibi waxay yidhaahdeen kullu dii raximin maxramin qof kastoo xigtaa oon xalaal guurkiina isu ahayn haddaa rag iyo dumar noqon lahaydeen intaa weeye inta ay waajib ka tahay waayo waa walaalihii rag iyo dumar waa eedo iyo adeer waa kuwaad adeerkiiyo abtiga u ahayd waa habaryar iyo abti intaas waay walaalaha isma guursan kartaan wixii aabbahaa dhalay aabbahaa la dhashay isma guursan kartaan wixii hooyadaa la dhashayna isma guursan kartaan walaalaha waxay dhaleenna isma guursan kartaan oo wiilad iyo gabdhaha haddaba kullu dii raximin maxramin bay daabit ka dhigeen fuqahada xanafiyadu fuqahada xanaabiladu iyagu halkaa maynan marin waxay dhaheen qof kastooo ku dhaxla bifardin aw tacsiibin asxaabu lfuruud almuqadara kuwa qur-aanka lagu sheegay haddaad dhimato xoolahaaga dhaxal ku lahaa hadday nool yihiin ay baahdaan inay xaq ku leeyihiin baa la gartay yidhahdeen iyo kuwa wax dhaxalaya ee casaabaadka ah adugu raxbiyadii intaad u noqoto warwaari